بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وايد من السلامي لما كافية تيم إن ما تحروا إن إذا لو ذاقوا برنامج أدمي موه برنامج كسولي هذا ويف accounting. ويف وبرنامج حسابات لو حساب صدق كان عصيدا نوعية سكرة دوان. برنامج كاني وبرنامج أونلاين وليبا فريه runtii barnaamijkani aad u anfacayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed intaba waayo waa free wax lacag ah oo laga doonayo ma jirto inta aad barnaamijkan isticmaalayso halka QuickBooks iyo softwares kale oo dhan ay yihiin lacag. sidoo kale barnaamijkan wuxuu leeyahay apps oo mobilka aad kala soo degi kartaa barnaamijkiisa si free waad ku isticmaali kartaa. marka barnaamijkan iyo waxaan rabaa maanta inaan isbarbar dhigno iyo QuickBooks farqiga u dhexeeya muxuu yahay keebaase wanaagsan. okay halkan waxaan ugu jeedaa comparing QuickBooks versus Wave, which is the best accounting software for you. keebaa labadan adigu ku wanaagsan. okay the main difference between QuickBooks and Wave is that the Wave is free while QuickBooks is not. farqiga weyn ee u dhexeeya QuickBooks iyo Wave waa Wave inuu yahay free hal QuickBooks uusan ahayn. farqiga kale oo weyn oo u dhexeeya waxay tahay in QuickBooks uu yahay the most comprehensive financial tool on the market. financial toolska suuqa la isticmaalo waa midka ugu ballaaran. ganacsiyada softwareka lagu isticmaalo waa softwareka ugu ballaaran oo wax alla waxaad rabto aad ka helayso weeyaan. halka Wave uu yahay choice ugu fiican haddii aad doonaysid wax fudud oo aan doodin wax adag. waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo when to choose a Wave. goormay tahay inaan Wave dooranaa? you want to save money? ma doonaysaa inaad lacag save garayso? haddii jawaabtaadu haa tahay waxay tahay inaad doorataa Wave. okay while QuickBooks has price plans ranging from 15 to 150 per month. wuxuu leeyahay price-ku QuickBooks-ku waxa weeyaan $15 ilaa $150 bishi qiimaha QuickBooks uu ka doonayo. Wave accounting software is free halka Wave uu yahay mid free ah. but is Wave really free? laakiin xaqiiqdii ma dhaba in Wave uu yahay free? yes. their accounting and invoicing software is free. accounting kooda iyo invoicing software kooda waa free and unlimited weeyaan waa mid aan xadidayn. so you can get instant access to all features after sign up. markii aad sign up ku samayso oo aad iska diiwaan geliso dhammaan waxaad helaysaa wixii aad u baahneed oo halkaas yaalay. you also don't need credit card to sign up. uma baahnid wax credit card inaad kaarkaaga geliso uma baahnid. marka barnaamijkan waa barnaamij aad u cajiib ah runtii. labo maxaan kaloo ku dooranaynaa you are a small business owner or freelancer. ma waxaad tahay qof milkiile ganacsi yar leh ama qof si xornimo u shaqaysta miyaad tahay? haddaad tahay waxa ku wanaagsan wax weeyaan Wave sababtoo aad garanaysaa sooma waa free. okay you want simplicity. ma doonaysaa wax fudud? haddii aad wax fudud doonaysid waxa ku wanaagsan Wave. okay you need quick and easy setup. ma doonaysaa wax fudud si fududna lagu samayn karo loona isticmaali karo? haddii aad doonayso wax weeyaan Wave. okay meeshaan waxaan rabaa inaan dul istaago. Wave is free forever. Wave weligiisu waa free. you don't need a trial or demo to get started. marka aad bilaabaysid uma baahnid in lagu siiyo trial. waxa la yiraahdaa in lagu siiyo maalmooyin aad programkaas ku tijaabiso. tusaale 30 beri oo kale sida QuickBooks uu bixiyo oo kale ama in lagu siiyo barnaamij fake ah oo aad ku tijaabiso. labadaba uma baahnid oo kaliya. once you have signed up you have access to all the features you need. markii aad iska diiwaan geliso Wave
isla markiiba waxaad awood u yeelanaysaa inaad isticmaasho dhammaan featureska ama waxyaabaha ku jira Wave. Okay, you want to use a QuickBooks. Goorma la doortaa QuickBooks? You want a more comprehensive accounting solutions. Ma doonaysaa accounting solutions aad u ballaaran. So macnaha waxyaabo badan oo baahidaada tiri. Ma doonaysaa software baahidaada oo dhan haqabtiri kara. Haddii aad doonaysid waa inaad QuickBooks isticmaashaa. Okay, so kale you have a bigger business. Ganacsi weyn ma leedahay or work in retail. ama qolooyin kale oo tafaariiqley oo kale hadii kula shaqeyso oo kale so markaas oo kale waxa u baahanaysaa QuickBooks. Okay, you plan on scaling your business soon. So ma rajaynaysaa ama qorsheynaysaa in ganacsigaaga uu aad u kobcayo. So hadduu ganacsiga aad u kobcayo way adkaanaysaa inaad Wave isticmaasho sababtoo ah Wave shaqaalihiisu way xadidan yihiin, featureskiisuna way xadidan yihiin. Okay, so marka way adkaanaysaa markaa. Okay, you want features that Wave does not have. Ma doonaysaa features ama waxyaabo reports uusan lahayn Wave. Haddii aad doonaysid waxa weeyaan inaad QuickBooks isticmaasho. So markii aan kasoo tagno waxaan rabnaa halkaan baan rabaa inaan imaado oo aan isdul taago Wave if QuickBooks feature sets. Okay, is Wave better than QuickBooks? Wave miyaa ka wanaagsan QuickBooks? The honest answer, so jawaabta ugu saxsan, is that it depends on your business. Waxay ku xiran tahay ganacsigaaga, your budget, balaankaaga, and the features that are important to you, iyo reportiska iyo warbixinada adiga ku muhiimsan. So meeshani lama dhihi karo Wave ayaa fiican, lamana dhihi karo QuickBooks ayaa fiican. Mar walba waxay ku xiran tahay baahidaada. So marka intaas markaa kaga soo baxo isbarbardhigga QuickBooks iyo Wave waxaan rabaa inaan tala soo jeediyo waayo QuickBooks way ku adag tahay inay isticmaalaan ganacsatada Soomaaliyeed waayo sababtoo ah ganacsigooda aad u yar yahay awoodna uma laha inay bil kasto ka go'do maxaa la yiraahdaa lacag ugu yaraan inay siiyaan QuickBooks $7 bishii way adkaanaysaa. So marka maadaama ay adag tahay waxaan kula talin lahaa inay isticmaalaan barnaamijkani Wave. Haddii aad farmashiye leedahay oo kale is good, aad u wanaagsan yahay. So haddaad carwo leedahay aad ku anfaca. So marka nooc kasta oo ganacsiyada ka mid ah waliba ganacsiyada yaryar aad u anfaca. So marka sidoo kale iskuulada bixiya computerized accounting ku yaala Soomaaliya runtii naftirkooda waan kula talin lahaa inay ardayda baraan barnaamijkani Wave sidoo kalena ay ku dhiirigeliyaan ganacsatada inay barnaamijkan isticmaalaan halka QuickBooks oo lacag ah runtii ardayda waqtiga ugu badan ay geliyaan. sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego kooraskani wuxuu noqon doonaa kooras tixan ah insha Allah. ardaydii doonaysana waxay nagala soo xiri doontaa WhatsApp-ka shaashada hortiina ka muuqda ama description-ka ayaan soo dhigi doonaa. haddii ay tahay marka ay kugu horeeyay soo booqato channel-kani waxaan kaa codsanayaa inaad ka mid noqoto Kaafiya Team oo aad channel-kani subscribe saarto sidoo kalena aad gambalka furato si aad ula socoto wax kasta oo aan halkan soo gelinayno. haddii aad ka mid ahayd Kaafiya Team waxaan kaa codsanayaa inaad videogani share gareyso oo aad gaarsiiso dadka walaalahaaga jecel inay bartaan. aad baa u mahadsantihiin.